koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan aryaadaha reer kalamaan calay madaxdi kalamaanka ahayd dhegaysigeeri waa ku dhafarteene inti baaliis yabirsuunaal ha soo baxdee ma barideen inti baaliis yabirsuunaal ha soo baxdee ma barideen haye baryaan kala maqnayno waahidii basaase bulshayahay manabadba bulshayahay manabadba wala ku tabti barinaye ma barideen barinaye ma barideen adiguna wax kalaad ka tag hergalnaya ma hergasheen hergalnaya ma hergasheen war heestan hal afaa lagu qaadi jiray afafkan badan inta ka dhaaftaan dhegeysta magaalada garowe sidii lacagtii tiiltiilay ama xalay dadkii ka hadlayo wada xishoonayay af wax cunay siduu yeeli jiray waa waramayeen miyaan gabaygu waa badan yahay idinku dheeray aryaxaad gabay lagu dheeraysaa xabadba nooma sheegin warninku wuxuu yidhi miyay lacagtu waa badan tahay deynteedii waashay lacagta imaaraadka bixiyey maya qadara dhiibti aryaadaha timirta horeba dab loo waay aa la yidhi kalamaan waxaan ku nacay shanqaro kalaa idiin baxa markaasaad ka hadashaa waxaan loo joogine dhegaysta sariigtiiyo sabool bay ka tahay saamaxaadaba siigada dhacaysiiyo hir iyo mawjadaa sida saldhig male siyaasada jirtiiyo hawsha socotaa saaxiib siyaasadii muufa ma ahan mugga ma karaacina waryayoontiku waa maxay miyaan iscafiyin waxaan idin idhi lilaahidaan dabbeeshay runta aaminka weyday beenta aan oggolaannay danaysiga aad dimbaystay arxankaa ka fogaannay laba aabba walaagtiyo laba uruna saxiixeedda taalla dhexdooda dhaqan maahan islaama ilaahowna badbaadi warwarkaasees markuu baarlamaanka furmoorgey kor ha loola kacee kabiirkii kale maanaan kobta aan ku arkaa war kabtaa hafaninta waa igu soo kadisee bal warkaan iga koobi war madaxdii xala garowe ka hadashay waxaa ugu warfiicnaa oo la qaadan kara warkiisa islaan ciise islaan maxamed wuxuuna u sheegay soomaali waxay dhibaato soo martay wuxuu kaloo u sheegay wixii hore in lagu waana qaato oo mar kale aysan dib u soo laaban war madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi soomaaliya 30 sano dawlad bay ahayd 30 sanona waa burbursanayd 30 sano lagu soo socda maxaan filanaynaa soo ma habboona inaan ka sii tashanno hor u dheeri ilaahayna siyooba ka darayhee aryaa anigu warkaaga ma aqaanay qabyada anaa dhammaystiraa ama uu yidhi war mucaarad iyo muxaafid xalay dadkii garowe ka hadlay waxaa ka muuqatay warkooda in la yidhi meeshaan hadal xanafle loogama baahna waa caleemasaar cabdiraxmaan cabdishakuurna afkaaba sharooto laga saaray waa muxuu somalilan magangelyo siyaasadada wadiisan waaye war warkaa naga dhexgelaya dhegayso warka isaguna maruu saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in madaxweynaha la caleemasaarayaa ka codsaday inuusan goobta ka hadlin maadaama aan madaxweynaha soomaaliya raalli ka ahayn war beentaan iska daa xala garowe mucaarad ma joogine muxaafid baa laga wada dhigay dadkii meesha ka hadlana qof kasta hadalkiisa wuxuu ku bilaabayaa isagoo karila waxaan salaamayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed farmaajo yaxaa la xafido madaxweyne xaafaaba ku bilaaba hal lees cafiyo leesuma uurfayaabe war xaa muxaafid ahaa mamahmahyadii oda biiqay iyo carraweeloo sheekh shariifa muxaafid ahayd war madaxweynihii hore puntland senator cabdiraxmaan faroole wuxuu yidhi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay ka soo jeedaan galmudug khilaafka galmudug ha xalliyaan axmed madoobena doorashadiisii waa weliya iyaysa ku dadegin buu dhaha walaadeeronima ku hadhay hawla haysaaye maxaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi loogu casuumi waayey garowe war muuse biixi meesha kama maqnayna layfuu u fiirsanaya caleemasaarka warna miyuu ani warsaynhaaye soomaali mayka maaha maahase halhaaran midig halaal madhalaasa madawiine lafta garan qudbadiisa ili dhagaysiyaasa haka haali mayleya dadka koonfur galbeed xaquuqdiyo oo sah ee buntlandka heenkii war isagmad isagan waa madagay meelaha ka alaam way xaquuqdaysa rasmi aan hali maaha war halasa qudbaaha
wareedha gudoomiyihii gobolka Gaarisa ee Soomaalida NFD على مسارك وحركة الله وحجر مدحنا على مسارك عاوة فديسة وحكم مقن سوماليلاند iyo Soomaali galbeed Soomaalida meel kasta waa ku dhibanta oo farq aan lagu dhigaya intiina korarka waa wata ayaa taladu ka gooda ama Soomaali badbaadiya ama qarib u dhaha war faarax macalin ugu yiri Soomaalida halalaayo si xal waar loo helo arada على مسارك xali anagu ma joogin Soomaalida waa wada joogtaa maxaa loo leeyahay yahi war adinka waara idin matalaye wan aku hertiyo war على زيد شيخ احمد مدوب wuxuu yiri eega waxa la jooga xilligii la isweydiin lahaa Soomaaliya xagee u socota laakiin kabtanka aan joogno wax la isugu sheegi karo la isku man calool fiyooba war gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuu yiri dastuurka Soomaaliya waa karaduunka ugu mudada dheer ugu qarashka badan welina waa qabiyo laba qofna ma kala saari karo war dhamaystirka dastuurka wasiir hoosh iyo xurriyadda Falastiin yaa soo horeeyay waa tii la yiri maxaa soo kordhay wal dastuurkiinu nacasimadaba emridada ku kaga dalayayba war madaxweynaha la caleema saarayay dani wuxuu yiri waxna waa la kala leeyahay waxna waa la wada leeyahay heeyaan la isku qaldin marka warkiisa waxaan ku soo xasuustay hadalkii Cabdulqaadir Oromo ee ahaa kaygana anaa iska leh kaagana kulali war hawaalanina qof kasta kartiisu wax ku yeeshaa waxna ku waayaan waradeena Soomaaliland cid nala yeelan karta ma jirto aryaadaha wax kale ma ogideen madaxweyne Farmaajo xalay wuxuu yiri hadii la iscafiyay anigana hal la cafiyo anigana afisaad iga tihiin waana idin la shaqeeyaha mugaan wixii ka dambeeya mucaaradna waa loo baahan yahay yiri oo laga ma maarmanaysan inta shisheeye soo raacaan kursigayga hunguriyayeen warnimada waxay xalad shaqeynaysaane maanta ka dambeeyay madaxda wada qadeeyeen sidii Sheekh Shariif sheegayna iyo qasnay ku kala tageen aryaadaha aniga waxa ii muuqata in lagu heshiiyay inaan la heshiin wax wanaagsan saadaali waxa saadaalini wax walba waa ka hadasheen ugaartii dalka ka dareertay soo celinteeda ma laga wada hadlay war Maraykan wuxuu yiri jid Soomaaliya iyo Djibouti isku xiran sameeyna war jidkaasi midkan ku tahriibi lahayn baa mas'uul midku soo guuri lahaa ani heer kala ma waxaan diinahay kulunkeena waa kawiirka ku jira waa la kasaa kulunkeena waa kawiirka ku jira waa la kasaa warnimada Soomaaliya state gobolka Soomaalida Itoobiya maamusho waxaan u maleeyay maamul goboleedka Soomaalida ku dhaqan yahay madaxweyne Mustafa Cagjar iyo shidanka la yiraahdo gudoomiyaha xisbiga ayaa iskhilaafay kadibna Abi Ahmed u yeeray labadoodaba hadda asoo labada dhinac ku siiyay labadoodii oo qoslayuu keenay yaa ceebkeed ma aha Soomaaliya caadadeed Soomaaliya ayay heshiin weysay intii heshiisiisa qaar Allah siiyo warmiye Soomaalida qaxootiga ee Kenya ku nool kamida waxa ka qayb galay shirka dhaqaalaha adduunka waxaana uu yiri waxaan u baahanahay in la dareensiyo inaan dunida qayb ka nahay waxaan u baahanahay inaan u noolaano sida bini aadamku u nool yahay manin xayawaan dad inaga idin lamid ahayaan nahay warniyo sidii qaran u hadlay war xabsiga dhaxankii lagu xiro Ingiriiska ahay arreeda waraa laga soo sheegay ayaa warka haayane war xabsiga lagu weeraa la yiri waxba ka jira aryaadaha koow la xiraaya xaqxaqtaya la yiri wax ma ka jira taas war shabaab iyo Daesh baa la xiraa la yiri ma waxba ka jira war jiraada akaaru iman quraan la yiri waa dambiye ama waxa ogtii sheega ama naga taga mana ka tagayna mana kula joogayno wala wixii la xiraa nagu cabaadin yaa war ilaahay ka cabsada wariya kan qabiilay wariya Allah idin xariifte